jaaliyadda Jubbaland ee degan waddanka Finland oo ku qabatay caasimadda Helsinki munaasabad lagu taageerayo laguna hambalyeeyo doorashada madaxweynaha Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe oo mar labaad ku guuleystay madaxweynaha Jubbaland 4 sano ee soo socda. xafladan waxaa jaaliyadda kala qayb galay la taliyaha madaxweynaha arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane Maxamed Cabdi Nuur Cazowe. sida oo kale waxaa kala qayb galay gudoomiyaha jaaliyadda Puntland iyo wakiilka Puntland ee Finland, gudoomiyaha jaaliyadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo gudoomiyaha Somaliland, odayaal waxgarad iyo haween iyo dhalinyaro. ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha jaaliyadda Jubbaland ahna wakiilka Jubbaland ee Finland Cabdiweli Qaasim Gaabow waxaanu yiri wakiilka cusub dowladda Jubbaland ahna jaaliyadda Jubbaland odayaasha haweenka dhalinyarada sidoo kale marti sharafka ugu horeeyo la taliyaha madaxweynaha. haddii aan wax ka tilmaamo waxyaalaha jaaliyadda ay doonayso inay qabato ama ku qoran qaynuunkeeda waxaa ka mid ah inay Jubbaland ama Soomaaliya ka taageerto dhinacyada waxbarashada, caafimaadka, nabadda, dib u heshiisiinta, walaalaynta ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda Jubbaland degan gudaha iyo dibaddaba. oo kale waxaa isaguna taariikhda iyo horumarka Jubbaland ka waramay la taliyaha madaxweynaha arrimaha dibadda mudane Cazowe waxaana ka mid ah hadaladiisii siyaasadda guud ee Jubbaland marka koobaad waxaan niri waa dib u heshiisiin so reconciliation meedaan maqal halbeega koobaad lafdhabarta koobaad ee dhismaha Jubbaland ee jiritaanka Jubbaland ee horumarka Jubbaland waxaan niri waa inuu ahaado had iyo jeer dib u heshiisiin. marka aragtida dib u heshiineed waa midda keentay dulqaadka aad aragteen. dulqaad meedaan arag muu u jawaabo muu la hadlo madaxweynaha maxaa loo daandaansanayaa waa laga gardaran yahay. waxaan ka doorbidnay dib u heshiisiisnimada hadday tahay deegaanka iyo hadday tahay dowladda federaalka labadaba. waxa ay soo jiitay si gaar ah inaan ugu soo safro Finland markaan internetka ka daawaday inuu jiro xafiis ay leedahay maxaan ku dhahay jaaliyadda Jubbaland ee ku nool Finland. iyaguna munaasabada ka hadlay aqoon-yahano iyo waxgarad dhammaantood hambalyeeyay madaxweynaha Axmed Madoobe waxaana hadaladoodii ka mid ah Soomaaliya Soomaali baale yeena xisadina la tagin Jubbaland way dhaqaaqday hoggaankan hadda haya hoggaan ka daacsan horeyna uma soo marin hadda kadibna alla keeni doono ma ogi. waxaan u hambalyeynayaa idinkoo ila jira oo aan doonayana shacabka igu taageertaan madaxweyne Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe. suuqan Soomaaliland liitanahay jaaliyadda Jubbaland xubin bay ka tahay oo yasan bay ka yihiin dalada guud taasi axsaan ma ahana waxay waajib ka dhigaysaa inaan wada shaqeyn buuxda oo hagarasho lahayn la dhinac istaagno. jaaliyadda Jubbaland oo halkaan sugu timi oo maaragtay iyaduna sidoo kale xawli xoog leh ku socota sida maamulka gudahooda ugu socdo. kale oo xusid mudan in madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe uu munaasabadaasi kaga qayb galay khadka telefoonka. jaaliyadda Jubbaland ayaa ah jaaliyadii ugu dambeysay ee xafiiskeeda laga furo Finland laakiin horumar ballaaran gaadhay ilaa hadda. aadan Yuusuf Cismaan, Home Cable TV, Helsinki, Finland.